kulankan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah maamulada iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay ka codsadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ahaa inuu caafimaad dibadda ugu qaadayo agaasimaha TV-ga Somali Channel ee Muqdisho Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag oo la xanuunsanaya dhaawac ka soo gaaray 2 sano ka hor kooxo hubeysan ay u geysteen magaalada Muqdisho. haddaba waa kuwan saxafiyiintii ka hadlay goobta oo ka codsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii. walaalkeen Cabdirasaaq Balaag oo xaalkiisu aad u sii liidanayo ayay maanta isugu yimideen saxaafadda Soomaaliyeed arrintiisa waxaanan codsanaynaa oo aan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa ballanqaadkii uu noo ballanqaaday wariyahaas xaalkiisa inuu wax ka qabanayo oo noo ballanqaaday waxaa ka soo wareegtay muddo bil ah kadib waxaa la qaaday dad badan oo dhaawacyo soo gaareen ayaa dalka laga qaaday sida dadkii ku dhaawacmay Hotel Ambassador hadda kuwa kala la qaadaya oo dadkii ku dhaawacmay ay ka mid yihiin Hotel Nasahablood dad badan ayaa caafimaad dibadda loo qaaday intaasna Cabdirasaaq xaalkiisu aad ayuu u sii liidanayaa madaxweynaha Soomaaliya ballanqaadkiisina bilaa ka soo wareegta waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha mashquulkiisa ayaa badan inay daacad ka tahay waa ognahay oo uu rabo inuu caafimaad u qaado hase yeeshee waa uu ka mashquulay waxaan xasuusinaynaa Cabdirasaaq xaaladiisu inay intii ka sii liidatay madaxweynaha marka waxaan leenahay adiga u madaxo mawla ku xil saaree maaree dhibaatada Cabdirasaaq xaalkiisu waa liitaa madaxweyne inaad arrintaas wax ka qabato ayaan ka codsanaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ciddii kale ee wax ka qaban karta xaaladda Balaag waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax ka qabanaysa xaaladiisa hadalka madaxweynaha inuu yahay dekreet soo baxday inuu yahay hadal ka soo baxay mas'uul Maahir Jaamac Aadan oo kulanka qayb ka ahaa ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday in uu dardar galiyo dadaalka loogu jiro in agaasima Balaag loogu qaado caafimaad dhanka dibadda ah. madaxweynaha 26 May 2016 wuxuu naga ballan qaaday in hawshan ay runtii noqonayso mid ay la wareegaan dawlad ahaan ama shakhsiyan uu u dirayo dibadda ballanqaadkiisii wuxuu dhisay qalbiyadeena wuxuuna geliyay rajo wanaagsan xitaa Cabdirasaaq Balaag markii ay booqasho marwadiisa ugu timi madaxweynaha runtii waxay aad u dhiirigelisay qalbiyadeena oo ah saaxiibkeen dhaqdhaqaaqii aynu sameynay inaan ugu guuleysanay caafimaadkiisana isbedel weyn oo xagga rajadeena ayaa soo kordhay laakiin muddo bila ayaa ka soo wareegay oo waqtiga uu isa soo guray xaaladda caafimaad ee Cabdirasaaq Balaagna mar walba waxay ahayd mid runtii sii liidanaysa oo sii xumaanaysa sidaa darteed ayaan mar kale waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed ballanqaadkiisii ahaa inuu noo baxnaaniyo oo uu dusha saarto xaaladda caafimaad ee Balaag inuu xoogga isugu geeyo inagoo og inay jiraan shaqooyin badan waajibaadyo badan mashquul badan oo madaxweynaha u yaala haddana waxaan jecel lahay inaan inaguna culays ku sii saarno bal arrinka inuu dareen gaar ah siiyo. ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu sameeyay Cabdirasaaq Balaag ayaa waxaa ka soo wareegatay muddo bil ah iyadoona ballanqaadkaasi uu ka horjeediyay saxafiyiin kula kulmay xafiiskiisa. Balaag nin wariyaan aqaan u ahay nafsadeyda soo dhalinyaro aad iyo aad u dadaalayo mar hore aad iyo aad waxaan maanta waan arkay dhaawaciisa waa la ii sheegay laakiin marna inta inay gaarsiisan tahay yani waa farqiga ay leedahay waxa marka inaad aragtid iyo inaad maqashid waa kala duwan yihiin ninka inuu dhaawac yahay muddo dheer dhaawac ahaa dhowr qalin galay laakiin markii dabaadana uu soo baxay socday jidka waa ayaan maqlayay marka waa iska baaran doona waa bogsooy waa fiican yahay waa soo kabtay iska lahayn laakiin hadda sida sawirka laga soo qaaday oo ka muuqatay waana weli waa aad iyo aad u xanuunsan yahay Allah caafiyo وحده إلهي وقدر وهالكيس لكن إن شاء الله تعالى بلاك والداوينا داوينتيس أنا قاضي دي قال لي يرى يبدأ الله درا والداوينا وحي إلهي وقدري ما كان يستاهل كرر لكن ده يري
insha allah intii hore ilaahay muxuu ahaa dan allah caafiyo laakiin waxaan rabaa inaan idin ballan qaado in axmed yuusuf suleymaan Somali Channel muqdisho.